Bismillahirrahmanirrahiim. Assalaamu calaykum. Maanta ama caawa kolba kii ay ku tahay waxaynu ka hadli doonaa oo soo gudbinaynaa qaybtii labaad ee xuruufta. Haddii aad soo daawatay barnaamijkeena qaybtiisii koowaad, tani waa qaybtii labaad. U soo dhawaada. Waxaynu ku bilaabaynaa xarafka G ama G. Waxaad tihiin dad hal abuur leh oo wax curin kara, inta badanna isku daya inay sheeko qoraan ama wax ka alifaan qiso dhacday ama sheeko looga sheekeeyay. sidoo kale dadkani waa dad aad u mufakiriin ah oo waqti ku bixiya siday naftooda u horumarin lahaayeen. dadkani waa dad ku raaxaysta wax akhriska iyo baadhista xogaha kala duwan. sidoo kale waxay jecel yihiin inay baadhaan taariikhihii hore, waxaanay jecel yihiin inay booqdaan meelaha taariikhiga ah. xarafka H ama H. dadkani waa dad aad u dad jecel, waa dad soo dhaweysta dadka, waa dad agtooda lagu nafisi karo. sidoo kalena waa dad jecel inay dadka ka caawiyaan mashaakilaadka haysta, sida mashaakilada xidhiidhada jacaylka, kuwa qoysaska iyo wixii la mid ah. dadkani ma aha dad isku adkeeya nolosha, waa dad aad u degan, wax kastana si degan u qabta. sidoo kale dadkani waa dad hal abuurayaal ganacsi ah. waxa kale oo dadkani jecel yihiin inay ka noqdaan hogaamiyeyaal ama taliyayaal meel kasta oo ay ka howlgelayaan. xarafka I ama I. dadkani waa dad geesiyiin ah oo karti badan, waxaanay ka mid yihiin dadka daacadda ah ee adduunka ku nool. hal wax oo muhiim ah oo adiga kugu saabsan ayaa ah sida xarafka ugu horeeya ee magacaagu muujinayo inaad tahay qof toosan oo aan aqoonin beenta, isku dirka, khiyaanada iyo laba wajiilanimada midna. sidoo kale dadkani waa kuwa xaraga badan oo jecel inay xidhaan dhar qurux badan mar kasta. xarafka J ama J. dadkani waa dad xiiseeya oo jecel inay keligood ahaadaan mar kasta, mana jecla inay asxaab samaystaan, waxaanay ka helaan inay ahaadaan keli mar walba. dadkani waa dad aad ugu wanaagsan dhanka waxbarashada, akhlaaq ahaanna waa dad edeb badan oo aan jeclayn hadalka badan, meelaha la isugu yimaadana ma jecla, waana dad gooni daaq ah ama keli socod ah. dadkani waa dad aad ugu fiican xidhiidhka jacaylka, waana dad naxariis badan oo jacayl yaqaan ah, ama si kale haddii aynu u dhigno dad romantig ah. dadkan aad bay u adag tahay inay wejiyo cusub bartaan, laakiin qofka isbartaan si sahal ah kuma kala tagaan. xarafka M ama M. dadkani waa dad caqli badan oo awoodo inay shaqooyin adag qaban karaan. sidoo kalena waxaa tahay saaxiibka ugu daacadsan adduunka. xasuusnow, daacadnimadu waa waxa ugu wanaagsan ee uu qof heli karo. sidaa darteed dadkani waa dad inta badan loo soo doonto talooyinka adag ee go'aanka ku dhisan. sidoo kale dadkan shucuurtoodu aad ayay u sarreysaa, waana sababta ay ugu adag tahay inuu xidhiidh ka dumo ama ay lamaanahooda kala tagaan. xarafka S ama S. dadkani waa dad leh sifooyin wanaagsan oo badan, waa dad leh habdhaqan akhlaaq ahaan wanaagsan, runsheegnimo badan, soo jiidasho gaar ah leh, sidoo kalena aad ugu wanaagsan la dhaqanka faamiliga iyo waalidka. dadkani waa dad aad u baariyiin ah oo u dabacsan waalidka, waana dad inta badan waqti geliya arrimaha faamiliga. sidoo kale dadkani waa dad aad u xiiseeya arrimaha siyaasadda. hadafka ugu weyn ee ay nolosha ka leeyihiin ayaa ah inay taajiriin noqdaan. sidaa darteed waxay waqti geliyaan shaqooyinka adag si ay u guulaystaan xirfad ahaan. waxa xiisaha leh ayaa ah in dadkani ay yihiin kuwa ugu horeeya ee jacaylku ku dhaco, inta badanna waxay la kulmaan qalbi jabyo kala duwan. xarafka Y ama Y. dadkani waa dad jecel inay u badheedhaan halisaha qaar. waxaad aaminsan tahay inaad shaqaalaysiiso dadka kale intii aad adigu ku shaqayn lahayd shaqaalanimo. sidaa darteed dadkan badankoodu waxay abuuraan ganacsiyo u gaar ah, waxaanay ku dhiiradaan inay bilaabaan ganacsi u gaar ah, waayo waa dad aad u neceb in la maamulo ama ay cidi u taliso iyaga. dadkani waa dad aad u mufakiriin ah, waana dad aad u dadaal badan oo aan jeclayn inay daqiiqad meel fadhiyaan. markasta waxay jecel yihiin inay waxun gacanta ku hayaan. habdhaqankooda cajiibka ayaa ah dadkani inay yihiin dad isla weyn. gabagabadii barnaamijkeenu intan ayuu ku eg yahay, waxaana aynu soo xulanay xuruuftii ugu mudnayd. aad baa u mahadsantihiin. assalaamu calaykum.